ma la dhiban tahay calool xiran ama calool istaag, dibriyo, aariya caloosha ama caloosha oo haba ka buuxsanto, saxrado adag, xanuun xilliyada aad saxrada dhigaysid, jeermiska caloosha iska weynaato ama haba ka buuxsanto, iyo mararka qaar aad u muuqato inaad dhergan tahay xitaa adigoo waxba aanan cunin. marwalba markaa cuntada lagu soo agdhigo ama cuntadii aad cunto ma qaadan kartid, ilaa waxaad u muuqataa qof dhergan adigoo aanan waxba cunin. inta aanan u gudgelin, waxaan si gaara kaga codsanayaa inaad falow ii soo dhahdid haddii aadan hore falow ii soo dhihin. sidoo kale muuqaalka laagsaar si uu dad badan u gaadho. qaybta hoose commentiga kusoo qor halkaad iga daawanaysid. mahadsan. haddaba haddii aad la dhiban tahay guud ahaan calaamadihii aan soo sheegay, sida calool xiranka ama calool istaagga, ama caloosha aan soconin, dibriyo, aariya badan, ama caloosha oo mararka qaar iska weynaato oo habo ka buuxsanto, xanuun xilliyada aad saxrada dhigaysid ama saxradaadu adkaato, jeermiska caloosha, iyo mar walba inaa ahaato qof iska dhergan adigoo aanan waxba cunin, cuntada aadan qaadan karin, iyo guud ahaan calaamadihii aan soo sheegay, waxaan kula talin lahaa inaad qaadato middle herb colon complex iyo middle herb probiotic advance prebiotic. si wada jir ayaad loo baahan yahay dawooyinkan inaad u qaadatid. dawooyinkan waxay kaa caawinayaan calool xiranka ama calool istaagga. sidoo kale waxay sare u qaadaan dheefshiidka, waxay caloosha ka saaraan walxaha wasaqda oo caloosha iyo xiidmayaasha ama mandhicira hadba sidaa u taqaanid ayay nadiifiyaan. sidoo kale waxay jirka ka saaraan amaba jirka u fududeeyaan inuu nafaqadii jirka oo si wacan u nuugo. cuntooyinka markaad cuntid waxaa loo baahan yahay jirka inuu nafaqadii uu kala baxo, soo marka wuxuu fududeynayaa in si fudud oo jirkii nafaqada kala baxo cuntooyinka aad cunto. sidoo kale dawooyinkan waxay taageertaa shaqada caloosha amaba xidmaha ama mandhiciraha hadba sidaa u taqaanid. sidoo kale waxay soo celisaa bakteeriyada wanaagsan ee caloosha amaba jirka u baahan. waxay kaloo sare u qaadaa difaaca jirka. sidoo kale waxay ka hortagtaa guud ahaan cudurrada iyo cilladaha kale ee ku dhaca habdhiska dheefshiidka sida caloosha iyo xiidmayaasha. haddaba si aad u heshid daawooyinkan ila soo xiriir.